السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنالك مركز سود وده أدي هذا ومهد سنتين مانتا وجمعو كوبي لباتنك بيش اللباد فبراير سنة كلبادو كون يشان يلباتنك جمعة ونكسنا يريد الله هاي ميل كستو أد نجدا ونيسان مقال كم حربنا أنا كو إيجو محكمة دي مقالة منيابلس وسعتي هوني دي مدحت جاهد أورو كفيدنا والفيوجر أيمي باك يسدو كلنا سالم سعيد وسجنا ملكياش مقاعد السفاري كمدها ayaa toddobaadkeedii labaad uu maanta soo gabagaboobaya shalay haweeney Soomaaliya ayaa marqaati ahaan loo soo hor istaajiyay oo kamid ah dadkii dambigooda qirtay sanadkii 2023 haddaba maxay sheegtay miyaysa ka xun tahay waxyaabahan lagu soo eedeeyay waan idin la wadaagaya sanadkan haddii canshuur celintii aad xareysay iyo haddii aadan wali xareyninba waxaad u diyaar garowdaa lacagtii ku soo noqon lahayd in ay waqti qaadan karto maxaa yeelay IRS-ta shaqaale fara badan ayaa maamulka Trump uu ceeriyay shaqaalahaas intay la egyihiina sidoo kale waan idin la wadaagaya marka hore soo dhawaad maxkamadda magaalada Minneapolis uga socota toddobaadkii labaad haweeneydii madaxda ka ahayd ururkii Feeding Our Future Amy Back iyo Salim Saud oo milkiilayaasha maqaayadda Safari Restaurant ee magaalada Minneapolis ku tiilay in uga socota Minneapolis ayaa toddobaadkeedii labaad uu soo gabagaboobaya waxaa muuqata in Feeding Our Future iyo Soomaalida bondada isku xireysay inay tahay maqaayadda Safari oo qofkii rabo in application soo xareysto in lacag la siiyo loo dirayay Safari markaas kadib markay Safari la kulmaan kadib lacagta loo bilaabay sida hadda dadka marqaati furka sameynaya ay sheegayaan sida muuqata marka wali waxa socota maxkamadda dad fara badan ayaa marqaatiyaal ahaan loo soo istaajinaya qofku markuu dambigiisa qirto marqaati ahaan maxkamadda loo soo istaajiyo oo marqaati furo dawladda caawiyo waxa laga yaabaa xukunka in laga qafiifiyo oo soo sanado yar la xiro amaba aan la xirin oo probation lagu xukumo marka haweeneydan waxa la yiraahdaa Qamar Xasan horay ayay dambigeeda u qiratay sanadkii 2023 shalay ayaa maxkamadda marqaati ahaan loo soo hoostaajiyay marka waxyaabihii dhacay ayay ka hadlaysaa su'aalaha la weydiiyay waxa kamid ahaa in cuntadan aad sheegayseen in caruurta aad siiseen ma wax oo accurate oo sax ah ay ahayd maya ayay tiri marka waxa la yiri maxaad marka adigu u soo dalbatay in aad cunto caruur siinayso marka waxay tiri xilligaas uma fikireynin si toos ah xilligaas uma fikireynin waxay tiri qof kastaba lacagtaasi ayuu daba joogay arintaasina ma wanaagsan Qamar lacagta lagu eedeynayo iyada iyo dadka la eedeysan oo xitaa gabadheeda ay ku jirtay haweeney kale oo meesha isla lahaayeen 16.5 milyan waaye marka waxay tiri xitaa way oynaysay mararka qaar marka marqaati furka ay sameynayso xitaa waqti ayaa la siinayay balse ay oohinteeda u dhameysato marka waxay tiri waan ka xumahay waxa aan sameeyay iyadoo sidoo kalena sheegtay inay ahayd qalad weyn mana ku faraxsani waana isceebsanaya ayay tiri marka Qamar sidee marka u faahfaahisay sidii ay wax u dhaceen aan bal wax yar aan idin la wadaago Qamar waxa ay marqaati furkeeda oo shalay xitaa mid ilin ay ku jirto lacagtaas 250 milyan iyada iyo dadka la eedeysan waxa ay Qamar iyada iyo haweeney kale ay isla lahaayeen goob ay sheegayeen in cunto ay ku bixinayeen marka Qamar sida ay sheegayba waxay tiri lacagta ayaan daba joognay arintaasina arin wanaagsan ma aysan ahayn Qamar Xasan waxay lahayd shirkad la yiraahdo SNS Catering oo sheeganaysay in caruur 2500 maalin kasta ay cunto siinayeen marka waxa ay ku bixinayeen ilaa iyo 4 goobood oo kala duwan sida ay sheegayeen inay leeyihiin oo ay cunto ku bixinayeen laakiin xaruntooda SNS Catering ay ahayd marka waxa kula jirtay gabadheeda Filsan Xasan marka waxyaabaha lagu soo eedeeyay waxa kamid ahaa in ay musuqmaasuq sameysay iyo istabamarin lacageed Qamar waxa ay sheegtay in shirkadeeda iyo gabadheeda ay isku diiwaan galiyeen barnaamijkan cunto bixinta waxay sidoo kale sheegtay inay ahayd haweeney la furay sida darteedna iyadoo waliba ilmeynaysa ay waxa ay tiri gabadheedu baabuur ma aysan haysanin anaguna waxba ma aan haysanin marka waxaan ku fikiray inaan gabadheeda caawiyo ku xigeenka xiriiryaha Joe Thompson ayaa waxa uu yiri markii aad arintan isku diiwaan galinayso cunto bixinta gabadhaada miyaad caawinaysay maya ayay tiri maxaa yeelay hadda weyba in nacab tahay waxa ay sheegtay iyadoo waliba emotional ah in arintan qoyskeeda xitaa ay kala geysay oo qoyskeedu uusan isku faraxsanayn hadda Qamar waxa ay tiri arintan in cunto la siinayo caruur gabi ahaanba maba aysan jirin oo waxay tiri lacagta waa la iska qaadanayo arintan waa la iska soo qoranayo qofku iska soo gudbinayay Qamar sidoo kale waxay sheegtay in shirkadeeda ay Feeding Our Future ay ka diiwaan gelisay sanadkii 2020 markii ay maqashay dadka Soomaalida ay ka maqashay in dad fara badan ay taajirayaan oo meeshan lacag laga helayo ayaan diiwaan geliyay tiri waxay tiri dadku waxay iibsanayeen baabuuro
guryo wax kasta ayay iibsanayeen sida ay ku marqaati furtay marka waxa ay sheegtay iyadoo shakhsiyan inay ka faa'iiday 5 milyan oo dollar barnaamijkaasi cuntada caruurta la siinayay waxay sidoo kale sheegtay in xarunteeda SNS Catering ay xirantay sababo la xiriira cudurkii coronavirus-ka darteed ay u xirneed markaas kadib markii arrintan ay maqashayna ay iska diiwaan gelisay oo ay dib u furtay waxa ay Qamar Xasan ay ku marqaati furtay in gabadha ay ganacsigu ka wada dhaxay oo la yiraahdo Sahran Nuur ay saaxiib la ahayd Amy Bag sida darteed Sahran Nuur ayaa waxa ay soo qoraysay dadka Soomaalida ah ee daykeerada iska leh iyo waliba daykeerada dadka waaweyn ay diiwaan gelinaysay si dadkan cuntada bixinaya ay uga mid noqdaan Sahran Nuur sidoo kale hore ay iyaduna dambigeeda u qaratay arrintan inay musuqmaasuq iyo lacag isdabamarin sameysay Qamar sidoo kale waxa ay ku marqaati furtay in ka qayb qaadashadeeda shirkaddan iyadoo ay lahayd arrintan cunto bixinta Amy Bag waxay tiri shakhsiyan 2 mar ayaan la kulmay mar waxa ay sheegtay in uu u diray Cabdikariin Iidle ninkan waa nin hadda wadanka ka maqan oo isagana shaqaale Feeding or Future kamid aha marna sidoo kale waxa ay sheegtay in Cabdikariin uu siinayay waxyaabaha loo baahan yahay inay sameyso iyo sidoo kalena cuntooyinka loo baahan yahay inay bixiso si ay lacagtaas u hesho Cabdikariin Iidle oo isagu kamid ah shaqaalaha Feeding or Future ayaa waxay Qamar ku marqaati furtay in uu yiri waa inaad sheegtaa in 5,000 oo cunto aad bixinayso maalin kasto arrintaasi waan la yaabay ay tiri isaga ayaa ii tilmaamay waxa ugu yiri tiri marka adiga cuntadaada waa inaad casho ka dhigtaa maadaama maqaayada Safari oo aan ka dheerayn goobta iyadoo ay sheeganayso inay cunto ku bixinayso ay qadab bixinaysay maalin kasta sida darteed maadaama maqaayadaasi ay qadab bixinayso arrintaada casho ka dhig Cabdikariin Iidle isaga dacwada waa lagu soo ogay laakiin wadanka waa uu ka baxsaday waa uu maqan yahay qareenka Amy Bag Kenneth Odibok ayaa sidoo kale waxa uu weydiiyay Qamar markii uu su'aalaha weydiinayay 2 mar ayaad la kulantay Amy Bag ma iyada ayaa ku tilmaantay inaad musuqmaasuqan aad ku kacdo Qamar waxa ay sheegtay in iyadu aysan Englishka ku hadlin isla markaana aysan akhrin karin aysan qori karin sida darteed waa ay cabsanaysay in gabadha ganacsiga shirkada ku lahayd Sahran Nuur ayaa waxa uu sheegtay in iyadu ay qof wax bartay ahayd oo luqadda Englishka si fiican ugu hadli kartay marka waxa la yiri miyaad cabsanaysay ma waxay tiri iyadu waa iga weyneed sida darteed iyada ayaa ugu caawinaysay sidii lacagtaasi aan u heli lahaa maxaa yeelay waxa ay tiri waan qadarinayay sida muuqata Kenneth Odibok qareenka Amy Bag ayaa sidoo kale waxa uu weydiiyay Qamar cuntadan aad bixinayseen waxa uu yiri ma u sheegteen shaqaalaha Feeding or Future inaysan sax ahayn maya ay tiri iyagu maskax ay leeyihiin wayna ogaan karaan sida ay wax u socdaan intii marqaati furka Qamar uu socday waxa halkaas lagu soo bandhigay videogii haweenkii Soomaalida ah ee Bramburka u sameynayay 3 sano ka hor waxaan u maleynayaa bishii June ee sanadkii 2021 inay ahayd haweeneyda Amy Bag ayay u baranburayeen oo ay meel keeneen waxana ay sheegeen sababta Bramburka xafladaasi loogu qabtay Amy Bag inay ahayd mar waxa jirtay wasaaradda waxbarashada musuqmaasuqa intay ogaatay ee lacagtii joojisay marka Feeding or Future waa ay dacweeyeen maxkamad ayay tageen waxay yiraahdeen wasaaradda waxbarashada lacagtii ayay naga jaratay markaas kadib garsooriye waxa uu yiri wax musuqmaasuqa uma jeedno lacagtii ayaa mar kale dib loogu soo fasaxay marka lacagtaasi dib loogu soo fasaxay darteed ayay Soomaalidu marka ay u qabteen Bramburkan ay xafladan ugu qabteen haweeneyda Amy Bag waxana meesha lagu qabtay iska lahayd haweeneydan Qamar Xasan oo shalay marqaati furka iyadoo sameeynayay waxayna sheegtay dhismahaasi lagu qabanayay in iyadu 5 milyan oo dollar ay ku iibsatay sida darteed halkaasina xafladaasi loogu qabtay Sweet Girl Amy markii la dhahay Bramburkaasi wax yar ila daawada shalana maxkamadda waa lagu soo bandhigay Sweet Girl Amy the Sweet Girl for our can Sweet Girl Amy Sweet Girl Amy Sweet Girl Amy Sweet Girl Amy waka Sweet Girl Amy ana ubaxan iskale Sweet Girl Amy waka ana ubaxan iskale Sweet Girl waka marka Qamar Xasan waxay tiri in iyadu ay xafladaas xitaa waa ay joogtay Sahran Nuurna waa ay joogtay tiri xafladaasi maxay waxa la yiri waxa ku faraxsaneedeen caruurta aad siinayseen cuntada miyaad ku faraxsaneedeen ayuu weydiiyay xeer ilaaliyaha Joe Thompson maya ayay tiri waxaan ku faraxsanayn lacagta aan helaynay ayaan ku faraxsanayn oo mar kale dib noogu bilaabanayso marka sidaas ay Qamar shalay ku marqaati furtay waliba waan ka xumaayay tiri waa ay ilimeysay marka marqaati furka maanta ayaa maxkamadda toddobaadkii labaad u dambaysa isniinta ayaa dib la isugu soo laaban doonaa dhinaca kale tax return-kaada haddii aad xareysay haddii aadan weli xareyninba waxaad u diyaar garowdaa in waqti ay qaadan karto xilliga tax return-kaada uu dib u soo laabanayo maxaa yeelay shalay maamulka Trump 6,700 oo shaqaalaha IRS ayuu shaqada ka ceeriyay bilaa sabab qaarkood waxay yiraahdeen
annagoo shaqadii joogna ama u soo soconna ayaa email naloo soo diray marka arrintaas waxay sababi kartaa in lacagta tax return-ka markaad xarayso lacagtii kuu soo laaban lahayd ay muddo qaadato maadaama aysan jirin qof tax return-kii process garaynayo shaqaalihii inta badan la fire gareey waxaana laga yaabaaba shaqaale kale oo dheeri ah oo IRS-ta ka tirsan in maamulka Trump uu shaqada ka ceeriyo marka halkii 21 maalmood ama 2 isbuuc IRS-tu ay taxigaada dib kuugu soo diri jireen waxa laga yaabaa bil ama ka badan ama bilaba inay qaadato marka arrintaasi haddii aad dareento sidaas ula soco arrintaasi ayaa jirta aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waare oo idin la sida iyo nabadgelyo